Burada ugu badan ee aan xumeyn ee kasoo baxdo naaska iyo bornaaseedka ugu badan ee ku dhacdo dumarka da'doodu ka yartahay 30 sano. Waxa aan ka hadlayno waa nooc ka mid ah burooyinka aan xumeyn ee kasoo baxo naaska. Afka Soomaaliga waxaan ugu yeeri doonaa buruqnaaseed ama dulax naaska. Afka caafimaadkana waxaan ugu yeeri doonaa fibroadenoma ama fibrocystic. Haddaba waa maxay buruqnaaseed? Weligaa kuus ama buruq yar ma ku aragtay naaskaaga? Weliba xilliga caadada u badan ma isweydiisay waxa uu yahay inuu kansar noqon karo? Maxaase sabab u ah? Maxay dhibaato ah u keeni karaan? Qaabkee loo baaraa? Sidee loo baabi'in karaa? Mise laga hortagi karaa? Waa cashir muhiim u ah gabdhaha guud ahaan haweenka Soomaaliyeed ee la socod wanaagsan ilaa iyo dhamaadka. Inuu naaska ay kuus ka soo baxo way dhacdaa, hase yeeshee inta badan bararida naaska 80% waa nooc aan xumeyn ama aanan ahayn kansar. Waxaa jira noocyo badan ee bararida naaska oo aan xumeyn iyo sababo badan oo ay ku soo baxaan, balse noocan hadda ka hadlayno waxaa luqadda caafimaadka lagu dhahaa fibroadenosis ama fibrocystic. Waana buro yar oo aan xumeyn oo kasoo baxdo naaska ama ibta caanaha kasoo baxaan. Waxay ka kooban yihiin unugyo qanjir ka samaysan oo sida goomaha u jilicsan, si fududna u dhaqdhaqaaqo markii la taabto. Wuxuu caadi ku yahay dumarka uu xaysha ama caadada ka istaagi rabo oo da'doodu tahay 40 ilaa 55 jir, iyo kuwa qaata daawooyinka hormoonada oo da' kasta leh. Wuxuuna naaskooda ku keeni karaa barar iyo xanuun yar. Intooda badan ma kordhiyaan dhibaatooyinka ah inaad qaado kansarka naasaha. Calaamadaha lagu garan karo cudurkan waxaa ka mid ah cudurka fibroadenoma ee naaska ama fibrocystic. Waxay keeni karaan naas weynaan, xanuun iyo inuu barar ka soo baxo naaska. Hal ama labada naasood ayuu waxyeeleyn karaa. Marmar fibroadenoma iskiis ayuu baaba'aa, laakiin way adag tahay inuu iska baaba'o, wuuna sii ballaaran karaa, gaar ahaan markii uu jiro uur. Ballacoodu wuu kala duwanaan karaa. Waxay noqon karaan kuwo aad u yar ama waxa uu ballacoodu u kori karaa ilaa iyo dhowr sentimitir. Dumarka qaarkood ayaa xanuun la kulma mar walba uu sii weynaado bararka. Sababaha keena cudurkani waxaa ka mid ah isbedelada hormoonka ee ku yimaada jirka dumarka. Waxay sidii caadiga ah yihiin sababta caanka ah ee keena bararada naaska ee aan dhibaatada lahayn. Isbedelka hormoonku waxay imaan karaan xilliga qaangaarnimada ama marka ay caadada istaagto, balse waxay si gaar ah xiriir la leeyihiin caadada. Sababta kale ee keeni karo waxaa ka mid ah hurka naaska, ibta naaska oo dhacaan ka soo baxo, bararka ibta naaska, xanuun ku yimaado naaska oo sabab u ah dhaawac ama nabar ka yimid qalliin hor loogu sameeyay. Baaritaanka cudurkani waxaa muhiim ah inaad si joogto ah u baartid naasaha wixii isbedel ah ee ku yimaada. Haddii aad dareento barar, u soo sheeg dhakhtarkaaga guud sida ugu dhaqsiyaha badan ee suurtagalka ah. Dhakhaatiirtu waxay baarayaan bararka waxayna go'aan ka gaarayaan waxa uu yahay, iyagoo laga yaabo inay ku diraan baaritaano dheeraad ah. Qalabyada lagu baaro waxaa ka mid ah mammogramka oo ah raajada naaska. Waxaa naaskaaga la saarayaa inta u dhaxaysa saxan macdan ah iyo saxan plastic ah si wax yar loo fidiyo. Haddii barar laga helo naaskaaga, waxaa la isticmaali karaa qalabka ultrasound-ka si loo helo sawir faahfaahsan. Waxaa habkan loo isticmaalaa dumarka da'doodu ka yartahay 35 jir. Haddii sababta bararka naaska aan lagu ogaan karin mammogramka ama raajada naaska, ama lagu ogaan kari waayo qalabka dhawaaqa dheer ee ultrasound-ka, waxaa la sameyn karaa biopsiga naaska oo loo diray shaybaarka. Waxaa la isticmaalayaa cirbad dhuuban si meesha bararka ka jiro looga soo saaro unugyo, kuwaas lagu baarayo microscope-ka ama qalabka weyneysada si loo xaqiijiyo natiijada baaritaanka shaybaarka. Daaweynta diliigista ama duugidda naasahaaga waxa uu naaska ka saarayaa wixii dheecaan ah, waxayna ka caawin karaan inay jajabiyaan buruqyada. Kareemada xanuun dilayaasha iyagana waxay ka caawin karaan inay yareeyaan xanuunka naaska, laakiin waa inaan la isticmaalin haddii uur la leeyahay ama la naas nuujinayo. Daawooyin badan ayaa lagu heli karaa rajeetada dhakhtarka si loo daaweeyo xanuunka naaska. Haddii bararka naaskaaga la ogaado inuu yahay mid aan xumeyn, waa la iska dhaafi karaa iyadoo la raacayo talada dhakhtarka. Markasta waxay ku xiran tahay xaaladda aad ku jirto. Si kastaba ha noqotee, waxay dumarka qaarkood go'aansadaan inay iska qalaan bararka fibroadenoma, gaar ahaan haddii uu weyn yahay ama loo arko inuu saameyn xun keeni karo. Haddaba sidee looga hortagaa cudurkan? Haddii aad si joogto ah uga baarto naasahaaga bararyada, wuxuu awood kuu siinayaa inaad isla markiiba la socotid waqti hore wixii isbedelo ah.
haddii aad dareento barar waa in sida ugu dhaqsiyaha badan aad u tagtaa dhakhtarkaaga si loo baaro. Waxaa dhammaan dumarka da'doodu tahay inta u dhaxayso 50 ilaa 70 jir lagula talinayaa in si joogto ah u baaraan naaska ayagoo isticmaalaya mammogramka ama raajada naaska 3 sanaba mar. haddii aad ka weyn tahay 70 jir waxaa lagugula talinayaa inaad sii wadid samaynta mammogram 3 sano mar. Fiiro gaar ah fibroadenoma ama buruqyada naaska ka soo baxa way weynaan karaan waqti kasta inkasta oo si iskiis ah iskaga baaba'o marmarka qaar. haddana dhaqaatiirtana waxay ku taliyaan daawada ugu habboon inay tahay in la qalo inta uusan weynaanin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.